burburkii darbigii Berlin dhamaadkii 1980 iyo dhicitaankii midowga Suufiyeed waxa uu sababay hoos u dhac jawi cusub ee nabadeed iyo barwaaqo. Qorayaasha qaarkood sida Francis Fukuyama ayaa ku tilmaamay inay tani tahay bilowga dhamaadka taariikhda. dunida ayaa u muuqatay inuu ka furmayo iskaashi dhaqaale, maalgelin iyo dhiirigelinta fikradaha dimuqraadiga. Caqabado ganacsi ee cusub ayaa irdaha u furmay. In yar kadib 10 sanadood rajadii laga qabay ayaa muddo dheer la ilaaway markii ay soo ifbaxayeen qodobada adduun cusub ee aad uga duwan kii hore. Adduunyada ayaa gashay jawi dagaal ee dhiig badan ku daatay. Waxa ugu darnaa dagaaladii Ciraaq. durbaba si cad ayay u soo muuqatay go'aankii George W. Bush madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka. dagaalka ka dhanka ah Ciraaq iyo hanjabaadihiisii hubka wax gumaada. waxa kale oo si isa soo taraysa ay u cadeysay in anjadaha Mareykanka ee dagaalka Ciraaq aanu wax yar ka sameyn dadaalka loogu doonayay abuurista dawlad dimuqraadiyadeed taas oo ka dhalata dalka Ciraaq. taasi waxa ay si dabiici ah ugu muujisay maskaxda caafimaad qabka ah su'aasha ah sababta uu Mareykanka uu dadaal fara badan u gelinayay laakiin jawaabta kooban ayaa noqotay shidaalka Ciraaq. dagaalku ma ahayn dhulbalaadsi siyaasadeed iyo awood midna. dagaalka Ciraaq ayaa ku saabsanaa si qoto dheer leh saldhigyada Mareykanka waxa ay ugu yeereen ammaanka qaranka Mareykanka ee mustaqbalka iyo awoodda Mareykanka. mid ka mid ah qabiirada ammaan ee Pentagonka ayaa ku tilmaamay inuu ahaa ajandaha dagaal qabow kaas oo ay ku doonaysay shidaalka Ciraaq. dagaalada shidaalka imika iyo kuwii horeba waxa ay isaga shabahaan qaababka awoodda dhulbalaarsi ama qabsasho. waa barnaamij tixane inoo noqon doona kaas oo aan ku falanqeyn doono qarniga dagaalka. aniga oo Cabduqaadir Maxamed ayaa turjumay soo saaray. waxaa si wada jir ahay ila tabin doonta Aisha Nuur. kala soco maalmaha Sabtida iyo Axadda bartanada YouTube-ka Somestream lana wadaag saaxiibadaada. mahadsanid.